Bannaanbaxani oo ahaa mid aad u ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa ujeedadiisu waxay ahayd mid looga soo horjeeday boobka baahsan ee ku hayso badda Soomaaliya dowladda Kenya. Ganacsato, culimada siyaasiyiin, haween, aqoon-yahano dhalinyaro ayaa ka soo qayb galay bannaanbaxa iyagoo kuwaasi dareen isku mid ah ka soo jeediyay khudbadii ay halkaasi ka hadleen. Waxayna sheegeen in dowladda Kenya ay isu suurtagelaynin riyada ay ku riyoonayso in ay dhacdo bad Soomaaliyeed iyadoo ka faa'iideysanaysa dagaalada iyo dhibaatooyinka ka jira dalka Soomaaliya. Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha noolaato Soomaali baa leh dhammaanteen waxaan u taagannahay difaaca dalkeenna rag iyo dumarba dhammaanteen waxaan u taagannahay nafteenna inaan u hurno waddankeenna. maanta waxaan difaacaynaa badda, berrina waxaan difaacaynaa barrigeenna. hoogayaasha wareersan markaas ay waddankeenna dalxiis noogu yimaadaan. qarashkii xoolaha hadhow aan ka qaadno xamar aan ku xushmayno ilaa waa la xumeeyey. شنت على وشغيس حاسديننا معهم وولالين لكن دولار باقاتي والدولار هو عدو حتى الوقتين مدك لو حام مدريا ما انت حلقة وحاني قليها دادك قاد ميري حتى صومحين هم بيها يسير هنا بدو دين والقاتي وروحات كفكتين ماشي عاد مريسين يالكي اتاقنتين معهم waxay maraysaa Soomaaliya noolaato waxay ka dambeeyay runtii aadan u kala daadsanayn. waxaan aaminsanahay waxa maanta nagu dhacay in annaga isku dhignay muddo 25 sano ayaa waxa dagaalamaya qabiil kastana waa iska dilayeen ninka haliyayga u ah ama matali doona ummadda Soomaaliyeed ama salaadiin ah ama ugaas ah. saaka waxa isku soo arkaan dad wax difaaca karin aan dareenkooda muujin karin aan ogeyn waxa ay Soomaalinimo tahay. runtii waxaan haystaa annaga isku dhignay ilaa Highcourt meel kasta oo martay Soomaali kii joogo Oslo kii Soomaali dabadeeda Boorama joogo in ay koodka soo saartay badan ay Soomaali saa ku helaysa inay toodo ahayn Soomaali inaan ahay 4 sano oo waddankaanay ilaa 2019 aan ku joogay Kenyan أنا هاي أبو سومالي سجون هاي باسبور كينيان أنا هستا لكن وده كان بحكي جوجا وحورتي الصومالية وأنا Dirish Sheikh Ahmed Guure, telefishinka caalamiga Karsan, magaalada Johannesburg, dalka Koonfur Afrika.